كان داون سو مقلبه يا دمقتي وفرز ودن تلانيغا مقال فرنسا ورك جيرون كشك ما تاكو سقادنا بشي تايكو بشي تضباد لباتن يسدع ورك جيرون كشك waxaan rabaa inaan ku soo qaato war degdeg ah oo hadda isoo gaaray oo qasab ay noqotay inaan sida ugu dhaqsiyaha badan aan duubo ayaa wax iga soo gaaray magaalada Muqdisho waxaan rabaa beesha abgaal weyne inaan la socodsiiyo waxyaabaha maanta dhacay wararka sidaan ku helayo waxaa la sheegay beesha mudulood inay muddo raadinaysay inay xasan shiikh la kulmaan sida ay ula kulmaan qabaa'ilada kale oo kale tii way dhici weysay beesha abgaal ayaa shalay shirtay waxayna goosteen in ay xasan shiikh bal raadiyaan siday kula kulmi lahaayeen sanad iyo bil ayay beesha abgaal waxay raadinaysay inay xasan la kulanto ee is wax weydiiso maadaama dhibaatooyin tira badan ay tirsanayaan sida uu qaabilay qabaa'ilada kale oo kale xasan wuxuu diiday inuu beesha mudulood mase beesha abgaal inuu qaabilo beesha abgaal waxay garaysatay xasan shiikh waxa uu ku hayo inay yihiin wax ay sidaas ku sii ahaan karin beesha abgaal waxay goosatay maanta oo kowda luuli ahayd ayay xali shireen waxayna yidhaahdeen waxaan rabnaa saddexda jilib ee beesha abgaal aan nahay waxaan idinka rabnaa min 5 qofood inaan iska soo xulno 5 harti abgaal ah iyo 5 wacbuur abgaal ah iyo 5 war culus abgaal ah 15 kaas waxaa hogaaminayay Weesle Cali Jeest wacbuuran waxaa hogaaminayay حسين جلعو هرتي أبقال نوعه قامناي أحمد جوهر وحي قوستين ما دام أي قلوايين بلا صوماليا ماشي أصن أوجو وحبجر أن أقولين إن لا أركو قبائل ذا قاركود ماهنه لقداري بيش مدلود مسا بيش أبقال إني حسن الكلمان وحي قوستين inay maanta oo January fast ay ahayd in ay isbartiibada oo khudbada ka akhrina ay ugu tagaan 15koodii way baxeen waxay ugu tageen isbartiibada meel ay fadhiisteen gacmo ayay taageen waxayna muujiyeen inay odiga halkaan u fadhiyaan fariin oo u direen in laga gaarsiiyo beesha abgaal Cusmaan oo odikeen ah oo 15 xubnood ah inay xag u fadhiyaan oo markuu howshiisa dhameysto ay rabaan inay qaabilaan oo ogolaado xasan waa diiday oo iskaga tagay warka markii sidaas oo u dhacay odayaasha waxay goosteen inay isaga tagaan kadibna ay warbaahinta la hadlaan maadaama uu xasan shiikh gartay inuu dadka hortiisa ku dhaqaaqo oo qiimay waaye marka waxaa la rabaa nin kastoo mudulood ah mase nin kastoo abgaal ah horta xasan shiikh inuu arko waxa uu yahay ani waxaad ugu haysateen war xasan shiikh maxaa ka rabtaa xasan shiikh waa walaalka xasan shiikh shalito markuu kursigan doonayay cid kasta og musqushaas gal haddii la waa galay war kursigii hadduu ilaahay soo sahlay beesha abgaalna ay tahay beel oo ilaahay karaamo siiyey
oo dhibaatada maanta ummadan haysato ilaahay ka dul qaaday oo ah dad aan dadka dhibin laakiin ay xaq u leeyihiin sida dadka kale loo qaabila in loo qaabilo bal wax alla waxay wataa inuu ka dhageysto dhihi maayaan anaga qabiil wax noogu qabo inta dhibaata oo qabiilka hadda gaarsiiyey ayaa ku filan marka xasan ninkii uu arkayay inuu yahay nin walaal ah xasan hadda ha ka war doon ha arko sida warka hadda igu soo gaarayo waxay tahay in ay dirsadeen ergo weli ay qabiilka abgaal 15 oday oo nabadoon in ay weli ay ka qoosanin inay la kulmaan xasan hadduu diido in uu la kulmo waxaad ogaatiin inay odayaasha ay ka hadli doonaan warbaahinta anaga xasan inuu la heesta yahay oo nin la leeyahay oo yahay dad kale ay leeyihiin waxaan rabaa nin kasta oo beeshaan ka dhashay inuu arko annaga dhibaatadana haysato waxay tahay nin kasta oo beeshaan ka dhashay marka hore waa nagu orkacsadaa markuu meeshaan tagana famiilku dhibaato u abuuraa hadda xasan sheekh markuu yimid iyo hadda meeqa jago aan haysanay ayaan maanta weynay laa cadow ma qalaq waaye niisa waxaan ahayn saraakiisha ugu badan ee joogto waxaan ahayn dadka ugu badan ee joogo maanta waxay isu bedeshay guriceel waxaa kaloo rabaa inaan u sheego hay-adaha email kasto ayaan joognay dhibaato kuma qabin xasan sheekh soo u yimid dhibaato meel kasta nooga timid wuxuu keenay kelmad la yiraahdo musuqmaasuq la dirir anagoo og wuxuu asiga yahay marka waxa waaye wax lala yaaba ah nimankan beesha ka dhashay oo markay kursiga raadinayaan beesha dhaxda ka fadhiyo markii la dilayna duudka gadaashayna soo galayo markay wax noqdaanna shashay kalkaal ah oo dadka kale jecel inay xambaarsadaan alora anaga waxaan loo roon marka haddaan nahay beesha mudulood mase beesha abgaal war inaan dadka shashay dhisano dadka shashay almeen waana karaameynayaan wax alla waxaan anaga leenahayna waana siinayaan waxaan leeyahay xataa waana siinayaan war anaga maxamed cabdullaahi farmaajo midaan saarnay iisaan dabada ugu galnay ilaahay og xasan sheekh meelahaas oo ka heesi jiray wuxuu sheegi jiray cid kasta og qabiilka abgaal inuu dhex yimaado oo gadaal inuu dadku u tuso wuxuu leeyahay magacaasaan leenahay anaga maanta magaciyo inkiraa magaciyo ogoleen meesha aan maanta laanana xasan sheekh asaan dhigay marka dadka waxaan rabaa inaan u sheego warkaan waa war maanta dhacay nin kasta si fiican ha u raadiyo ma aha inaan been sheegay inaan dad been ka sheegay ma aha cali jeesto waa nabadoon beesha waceesle ninka la leeyahay xuseen jilco waa nabadoon beesha daa'uud ninka la leeyahay axmed jawharna waa beesha harti abgaal saddexdoodana waa joogaan haddii xasan cawada oo iska gaari waayo odayaashaas oo qaabili waayo birito ha ogaado inay warbaahinta warkaan aniga aan sheegayo iyo war lamid ay ka sheegi doonaan waxaan marka dadkan 3 milyan iyo ziyaadada lagu tilmaamay ee magaalada muqdisho degan ee Soomaaliyeed xaqay leeyihiin dhaxdoodan Soomaaliyana xaqay ku leeyihiin oo muhiim ah waliba laana dad magaaladan dadka ku nool halbowlaha dawladnimada Soomaaliya qofka hadii halbowlaha laga gooyo inuu noolaanaya halbowlaha dawladda Soomaaliya maanta jirta ee soo jirtay way sidaas oo soo ahaa maalintii dawladnimada Soomaaliyeed ay burburtay ee hal soo cili dadaalkii ay loo istaagay odayaasheenna ay u istaageen ilaa maanta dhibaatooyin iyo duruufo gaar ah iyo waxa iska soo qaabileen ah ku dhex jireen laakiin sidaas ah dawladda maanta taag iyo midii koorisi midii ka soo dhan sidii wahay way maxay saas u yihiin dad kale uga duwan yihiin dawladdu waxay ku nooshahay waxa waaye cashuurta ay bixiyaan
صورة قال معها ما أنت مسؤولين دل كودن أنت عشور تلقى أورولي دولة إن عشور تلقى مسؤول تقل ضدك مقدشة أنت كلا أي جاران وعشورة بدعوه يوحد أي جاران أي عشور الدولة عم بيس بقولات معها آران يرى تبركنا أي لبعتكنا أي بقولكم معها بقولان مليون أو دولار رالي كويه maalin ayagoo mudaaharaadayo jidka taagan oo cashuurta diidan lama arkin waxay daliil u tahay dadkan inay dowladnimada macno weyn u fadhiyo waa la og yahay taariikhiyan Soomaaliya markay burburtay odayaasheenii qaarkood waa dhinteen Allah naxariista qaarna maanta meeshaan fadhiyaan inay buraashada inta biyo ku shubteen Soomaali inay doonaan ayadoo Soomaali kala irdhowdo oo la isu gelin oo cadaawadi dhacday oo la isdilay oo la kala irdhoobay inay baxaan ay dadkii wax sheeganay guryahooda uga daba tagaan inaan raalli ahaad aan soo noqon waa dowlad aan samaysan dadkaani waa dadkaas dadnimo wanaagay ka ahayd doqonnimana kama ahayn garasho wanaag iyo xilkasnimo ummadeeday ka ahayd kama ahayn muxuu ahaa magaciis welina waxaa ka muuqda intii xambaarsan yihiin weli inay Soomaali maalin dadkaan inta tashadeen sida inta isu yimaadeen Soomaaliya meel hebel degan ama reer hebel meel hebel degan aan ku duulno weligood kuma tashan taariikhda waa la ogyahay way qoran maalin maalmaha ka mid ah waa la ogyahay dadkan magaalada Muqdisho dalka meel ka mid ah dhibaato ka jirta oo maxaan ku iraahdaa masiibooyin ka dhaceen hadii la yiraahdo inay guryahooda iyo maxaan ku iraahdaa jeebado inta ku noqdaan lacag soo daraanay biyo xamar laga qaaday dad Soomaaliyeed oo meel kale oo aad u fog ku ooman hadda goor in loo geey annaga taagnayno joogo dooyada biyo oo xamar biyo looga shubay dad Soomaaliyeed oo muxuu ahaa meel ku dhibaataysan abaaraysan in loo geey idaacadaha ugu horreysay xaafadda dalkan ugu horreeyay bulshada rayidkaan ahayd habeen intaan fadhiisanay idaacadaha